بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يريكم الله آياته والله عليم حكيم. ayadan waxaan ugu furtay wax kale maaha, waxay aad xoog u saaraysaa midnimada iyo isku tiirsanaanta in ay ummaddu u baahan tahay khaasatan mararka ay cariirigu ku jirto oo col dibadeed uu yimaado iyo mar walbaba inay tahay muhim dad wax kala xooran dad wax isu keena ee ummadda la wado keeda fiican iyo kan kaleba sidaas awgeed meeshan waxaan u faa'iidaysanayaa inaan soo jeedin inay midnimadeena muhim u tahay qadiyadeena sidaas awgeed waxaan jeclaan lahay inaan baaq u dirno halkan dadka Soomaaliyeed cishada midnimadiina kula dadaala kana hortaga mataqaanaa gumaystaha doonaya inuu taaka ka mid ah dhulkiina qaato waana mahadsantiin. kulankeenan ujeedadiisa waxay tahay in laga hadlo abaabul muddo soo socday oo jaaliyadda Soomaalida ee waddankan ay ku doonayso inay banaanbax weyn ay ku samayso London. banaanbaxaasoo la qorshaynayo labada bisha Febraayo oo ah maalin Jimco ah. banaanbaxaasi sida uu dhacayo iyo qaabka howleedkiisa waa laga hadli doonaa, laakiin waxaan jecelnahay marka hore in kulan hadda waxaan mikrofoonka u dhiibayaa Sultaan Daahir Xaaji Boqorre. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waa mahadsantahay Sahalow. dhammaan kasoo qaybgalayaasha dhammaantiin wada salaamayaa. walaalayaal sida aad la socotiin waxaan halkaas ugu nimid muddo dheer ayaa wadnay in aan diyaarino banaanbax lagu difaacayo madax banaanida Soomaaliya iyo arrinkii gardarrada ahay ee ka baxday dalka Itoobiya, taas oo loogu talagalay in lagu garab istaago madaxweynaheenna iyo xukuumadda iyo bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. banaanbaxaasu xilliga uu dhacayo waxaa noo daadahin doona caawo oo si fiican loogu dhirji doono walaalkeen Sahal oo qaatay dhammaan boorarka ama ha noqoto ama bitiishinadii ama ha noqoto muxuu ahaa ilaahay kuma darnaaday wax alla wixii banaanbax lahay ama bilmishikii intaba asaga dhabarka u dhigtay oo 10 beri intaa la isdaba taagnay cidiyaan uga soo baxeen. waxaan leenahay ilaahay kiisadiisa jannada ha ka dhigo. ilaa aadan kiisa ma laha laakiin wax u dagaalamaya dalkiisa weeye, annana waxaan intaa usoo jeedno dalkeenna weeye. inta halkaa fadhidana wax u fadhida waa dalkeenni. waxaan idin leeyahay walaalayaal maantay waxaan u baaqaynaa meel kastoo aad joogtiin in banaanbaxa oo ujeedi doono walaalkeenna si fudud looga soo qayb galo. waana mahadsantiin. Sultaanka Daahir Xaaji Boqorre aad ayuu u mahadsan yahay. waxaanan rajaynaynaa in dadweynaha jaaniska u hela ama fursadda u hela inay maqlaan baaqaasa iyo hadbaaqiisa iyo hadalkiisa ay noqdaan kuwii ku camal falay. walaalayaal sida aad maqasheen waxa ay isu tegey dhuuxa jaaliyadda Soomaalida oo kulamo ku yeeshay meelo kala duwan. marka waxaa la isku raacay xilligan adag ee waddankeenii Soomaaliya dalkeenii hooyo ay la soo gudboonaadeen taxadiyaad kaga imaanaya dowlad jaara oo taxadiyaadkaasi aan ahayn kuwo cusub laakiin kuwa soo jireenaa taariikhiyad dheer leh
قرون بدن أما قلنيال فرا بدن سوق بي إن ما أنت دمعدي ومال هلسة قلي أو أي دوني سحوجة إني أوهشوا طريق أي كدتو بدها الصومالي ده إن هدبا إن waxa ay Ethiopia doonaysaa in 20 kilomitir amba 12 mayl dhul ah oo ka tirsan badda cas ay ka dhisato saldhig military ama naval base marka waxaanay iska cad yihiin oo kelimada cadeynaysa ma aha iskaashi dhaqaale ama wax ay mataqaan Ethiopia Soomaaliya tarayso waa wadan asagu aanan lahayn bad oo landlocked ah in uu raadiyo in uu yeesho saldhig military waa shay ka weyn waxaana ku jira dawlado fara badan aniga waxaan rabaa in afka ku dhifto taxadiyaad kasta iyo dib kasta wadanka lala soo aado waxa uu fashilmayaa haddii ummadda lala soo aado ilaahay tawakasho ay isku duubanto oo ay si wada jira uga hortagto ha noqoto si amni ah haddii laga fursan waayana naftooda ay u huraan sharaftooda iyo karaamadooda marka waxay doonaysaa Ethiopia inay qaadato dhulkaasi 20 kilomitir dhan oo xeebeed ayadoo doonaysa waliba in la siiyo ruqsad ay ku degto iska magaca 50 sanadood marka annaka Soomaaliya nahay gobol kasta iyo tuulo kasta iyo degmo kasta annaka isla dhalanay isku afah isku dhaqana khilaafaadkeena dhamaysan karta Ethiopia waa inaan ka hortagnaa marka si wada jira oo isku duubni ah marka banaanbaxa ujeedadaasi ayay tahay waxaana wadanka Soomaaliyeed dhammaan UK jooga magaalooyinka waaweyn Leicester Liverpool Manchester Milton Keynes soddon iyo saddexda deegaan ee London dhammaantood danaynaya wadankoodii qaaliga ahay inay banaanbaxa maalinta yimaadaan dadku waa macnaha shaqo waxaan isugu nimid oon guryaheena uga soo tagnay oo danaheenii oo dhan aan gadaal u soo maraynay inaan difaacno dalkeennii hooyo runtii ummadi dalkeeda ayadaa dhisata dhulna ninkiisa u hara annagu gardarrada caddaanka ah oo taliskan macagaga ah ee Ethiopia oo ku soo damaaciyey barrigeenna iyo baddeenna ayaan inaan u sheegno dhul ka mid ah Soomaaliya taa ka Allah ka dhigay inuusan macnaha naga qaadan karin Soomaaliya inay tahay xeebaheeda iyo dhulkeeda iyo barrigeeda iyo baddeedaba dad aan laga qaadan karin inay tahay inaan xuduudeena aan xusno mudaahiraadkan markaa oo baryahan oo dhan aan soo qabanqaabinaynay oo runtiina aan ka mid ahayn guddiga qabanqaabada aan ahayn oo runtiina aan u istaagnay dalkeenna inaan difaacno ay had caawiso runtiina waa arrin muqadas ah dhulkeenna baddeenna barrigeenna waa lama taabtaan wax la taaban karana maaha intayna gabar intay naga nooshahay dhulkeenna beenbeen uma soo geli karto cadowgan jiraynta sijaaliyadan marka waxaan ugu baaqayaa meel walba qof kasta ee Soomaali ah ee ku abtirsada magaca Soomaali ah maanta waxay taagan tahay yaa maalin jira waxay taagan tahay maanta halgankii SYL oo kale taagan tahay waxaan ku soo dhaweynaynaa mikrofoonka Cabdi Cali هذا الكواب بوحوا محن ما يشغلني وحن ما يشغلني الصومالي ولا يران إنت تيرنا ولا يران هذا مظاهرات وحن ما يشغلني محن يرى وما لا قبلية حاجة لا قبل الله ليش وحن أقولني الصواب وحن أقولني الصوابتي للقوة يرى هاي مظاهرات إنه دعيو وقت لو دعيو يا وقت على قبلية محن ما يشغلوا يران أي قصدي جيبوها وحصوها Ethiopia وانا قالوا وانا نقولها ما أنت ما يبلغون waxa ay rabtana ma ahan 20 kiiloomitir waxa weey meesha ka soo gali lahayd Kenya waxa uu nugleeyayna waxa weey Ethiopia awal bay salaxatay markay inta kala googoysay Maryam midabiyada u yeeshay oo midabna waxa kale oo samaysatay markay goolka dhalin lahayd waxa la jiro marka
waxaan aad aan ugu taageerayaa madaxweynaha Soomaaliya baarlamaanka wasiirada iyo shacabka mudaharaad aad u mahadsan yihiin annaguna qaybta yalaan qaadanayna كتاريخ إثيوبيا إسكندر إثيوبيا وانا حكينا نوقف تالان إيش إنه جبته معي نقربته وعصور وأولى وما سنتي مثلا أول شيء صحافة حد أو إذا عدت كسر مثلا شركة لغو قباطة لغو أورجنايزارين أي برنامجها وقبض دولة جماعة صوصة سبحان الحكومة هذا كادو هليه لبلا كما بيقول هستي برلو عن سوق هذا هالكاس وقديها ومدة الصوماليين وحي أي وجه هيسنتو ويترادو وقبرينا وواحد يتوكران لكن مركي لك لا سعودو وعد كستوى أي شاتي كلا جشنتها مركحين ولا شيء بريه هي بقول لهين وذي هي بقول لهين مركي واحد وجو marka Soomaalida marka uu baa kala socnay Ethiopia maanta wax ay ka nugashahay ma jiro Ethiopia maanta aydiya isku hesha aydiya iskaraacayso aydiya gudaheeda isku dhagan dhaqaalaheeda dhulka u yaala maanta cid wadan oo garab siinaana ma jiro soo kala ma waa isku soo horjeedna waxaan jeclaan lahay barnaamijkan oo noqdo kii ugu weynay oo Soomaali mideeyo waxaan malaynaa labantii insha Allah hadda waxaan u dhiibayaa mikrofoonka walaashin haweeye galmudug السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أنت واحد السلام اختيارت شرفت له وكرامة له وهالكان سقوط تبت ووادلينتا ودلكودي إن الدفاع عن صوب حي وأنا كيسان مانتي حنون كسور واقعي لصور شيء نبركو sidoo uu weeyahay maanta qabow iyadoo jiro maalin shaqada tahay ikhtiyaarta halkan fadhido soo baxday Umar xanuunku sidoo u badan yahay dareemi kartaan waxay isugu yimaadeen badana waa dadkii 77kii iyo amxaar iyo gumeysiga soo maray bay u badan yihiin anigu waa joogo 77kii kulli digamo wada yara ayaguna waa insha Allah abaabulka oo sahal iyo beerula iyo boqorro iyo ay noo wadaan waa ku mahadsan yihiin aslaax waaye aslaax baynaas weeye dalkayagii inna la gumeysto anigu reer Ethiopia ahay amxaar markaan maqlo wallahi 3 bari inta ma cuno xanuunka uu leeyahay gumeyska hadaa tukanayso qortu kaaga istaagay waa salaad ma yaqaan waa soon ma yaqaan waa aruur ma yaqaan waa naag galaysa ma yaqaan waa xasid cadow ah marka waxaan rabnaa hooyooyinka iyo aabayaasha Soomaaliyeed oo baaqaan soo gaaro rag baa dhimanaya oo dhiig baxaya kuwa baraalis noqday kuwa agoo hooyooyin baa wiilashoodii aabahood ka wada dhinteen waa arkayseen hooyo ninkiina laga dilay laba wiil oo yar yar iyo geelina laga kaxaystay oo ilmiyo dhaawac la keenay walaalayaal kuwaas fiiriya ficilkaas oo aan meel qabo u haysan oo koon lacag kala baxayn meel nabada joogin oo maxaa tira ku dhimanaya ficilkaas oo kale waxa la rabaa inaad banaanbax nagala soo qayb gashaan inaad soo baxdaan dhulkii Soomaaliyeed baa la difaacaya dhulka Soomaaliyeed lama kala laha af kasta ku hadal calan kasta oo maaragtay taago ama buluug ama cagaar taago waxa weeyaan wadanka Soomaaliya waa naga wada dhaxeeya waa inaan u doodno waa inaan u dacwoonno waa inaan u istaagno waa inaan u banaanbaxno tafaaliiskii baan haynaa maxaa tira juudigii baan haynaa rag baa dhimanaya oo qabowga noo taagan rag baa dhaawacmaya rag baa la qarxinaya rag baa furinta fadhiya rag baa dhaawacoodii meedkoodii la yahay dhulka iyo dadkay u dhimanayaan marka walaa mushaar ku qaadanayn oo baabuur qunfulan ku jirin annagu waa inaan banaanbaxa soo buuxino dhagay far ay dhacdo Ethiopia inaan gilgilno Ethiopia dhan dulanka ma wada waa ninka abi waxa dulanka wada oo dhul balaarsiga wada oo ceebaha iyo dhaawaca uu Ethiopia ku dhex qaybiyay oo ku laayay ka dhuumanaya marka inaan ceebtiisa keenno markuuna arka harata ku soo boodo uu dhinto ku baqtiya meesha islaan ahaan anu moogiye ayaan doonaynaa marka walaalayaal hadalku waa midnimo iyo soo wada baxa dhamaantiina waa in salaam calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
إن نديبو ميكروفونكا قبر سوماليات وليدا زارة محمد ووحوين سؤال قلتي وميلا بدن والسينما فيلا سومالي قديد اللغة هذا أنا أقول فيلمين قف إنه كسر بحايا إذا تاجن ودوديسا ومعناها إلهي ما هنا أنا قف كذبين يعني مثلا أنا أقولسي أما أمان مركب راشد زهر وحكاية السنة أقول دقين دنا برند وأنا وحبنا بنا بحيدي بدا كي جامع الباب كي العدة وحبنا أصلح وقابلنا وحنوجينا إن تذكر شحر وقلبك عندهم زهرة ولا الكسر لواب هذيك أول ربنا فلين تنتظر إن الله كلا هرين خاصة دقائق أكتر بسم الله الرحمن الرحيم وإلي ولا سلامي مدور عيش سبوع تمي دمانتي ولا سلامتين كل عاون كانوا حاسبوا كانت دن جودبا كان dadkii wada keentay qof walbo kulay dad badan baa wada hadlay macnaha iyo ujeedada shirka waa la wada sheegay hadalka badi maayo waxaan leeyahay Dr. Wasaare Maxamed Cali baa leeyahay waxaan ka mid ahaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee degan wadankan UK gaar ahaan magaalada London gaar ahaan Brent Barrows baan ka soo jeeday oo deganahay haddana waxaan rabaa inaan fariin u wada diro ummadda Soomaaliyeed jaaliyadda Soomaaliyeed meel kasta kaga degan tahay wadankan UK ah xataa kuwa dariska ah oo ma aragtay Yurub ka dhow degan haddii ay waqtigooda noo soo huri karaan arrintan waa arrin guud cid ay u gaar tahay male Soomaali weyn bay ka dhaxaysaa Soomaaliya Soomaali baa leh soo qof walba Soomaali ah waxaa waajib ku ah inuu arrintan ka danqado oo una ka hadlo anigu hadda waxaan fariin si guud ama gaar ahaan u wada dirayaa ummadda jaaliyadda Soomaaliyeed Yurub ka dhow degan iyo UK degan gaar ahaan magaalada London gaar ahaan xaafadan ka soo jeedo Brent ah waxaan leeyahay arrintan waa arrin guud ah waa muqaddis markasta Soomaali waajib bay ku tahay inaan maalinta jimcaha soo socda haddii Ilaahay na gaarsiiyo nafta nagu wada simo inaan meesha isugu imaano oo aan ka hadalno dareenkeena iyo waxaan ka aaminsanahay iyo qadiyadeena inaan tusno Britishna waan nahay Soomaalina waan nahay soo waa muqaddis waa inaan ka hadalnaa dawladdan aan halkan joognona waa inaan fariin u dirnaa oo aan tusnaa waxa aan ka qabno dareenkeena aan tusnaa wadankan dawladdan Ingiriiska ah fariin kalena aan u dirnaa Ethiopia inay ogaato Soomaaliya gudaha joogta kaliya maahane Soomaaliya adduunka dhan bay wada joogtaa waana dad u wada taagan wadankooda inay difaacaan fariintaas waxaan u diraynaa Abiy Ahmed oo jande iyo dan gaar ah ka wada maxaa yiraahdaa gobolka East Africa uu ka wado oo doonayo inuu si kastaba ha ahaatee inuu tikad helo teena ma ahane kuwa kale raadsan inaan ku dhahno fariintaas Soomaali baa leh dadkeedina baa taagan oo diyaar u ah inay difaacaan waxaan leenahay walaalaheena Soomaalida soo wada baxa maalintaas waa inaad ku soo baxdaan aad ka hadashaan aad ka tarjuntaan waxaad ka qabtaan qadiyadiina iyo dhulkiina dhalinyaro haween maxaa yiraahdaa iyo odayaal cidna inaysan soo hadin in la isku wada yimaado oo aan ka maalintaas aan tusno ayaan fariintaas ayaan dirayaa waa wada salaamintihiin salaamu calaykum warahmatullaahi waxaan hadda aad u mahadsantahay walaashan Zahra ilaahay waxaan ka rajaynaynaa dadweynaha dhammaan maqlaya kuwa deegaanka ay ka timid iyo kuwa kaleba inay maalintaa loo kala harin waa 2 bisha Febraayo maalin Jimco ah 10 subaxnimo ilaa iyo 1 barka waa safaaradda Ethiopia horteeda kadibna waxaa la isugu tegayaa Trafalgar Square oo laga dhaqaaqayo socod ilaa iyo Downing Street waa maqarka ama saldhigga dawladda Prime Minister meeshuu fadhiyo meeshaas oo ayadana la joogi doono ilaa 6 labada meeloodba banaanbaxa waxaan codsanaynaa dadku inay waqtigooda siiyaan hadda waxaan ku soo dhawaynayaa mikrofoonka Sultan Ahmed Hussein ilaahay waxaan ka baryaynaa waxa wanaaga oo khayrka ah oo sharafteena iyo karaamadeena ku jirta ilaahay inuu guuleeyaa ilaahay ka baryayaa isaga awood leh walaalayaal marka ugu horeysa
waxaan la hadlahayaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka UK waxaa walaalayaal idinka codsanayaa taariikhda la idin sheegay oo caawan hawsheeda halka u fadhina abaabulkii ma garanaysaa mudaharaadkaas aan ku mudaharaadayno safaarada Itoobiya inaad ka soo qayb gashaan dhammaan gobolada iyo degmooyinka UK waxaa weeyaan haday maalintu sidii dad hore u sheegeen waa maalinteedii weeye dadka reer baadiyaha geela markii laga dhacayaa maali jiray bay oran jireen marka dalka yaa lahaan jiray baan leenahay maanta Soomaaliya yaa lahaan jiray baan leenahay walaalayaal cadowgaaga xuduudaada la tusaa ciidankaaga la tusaa cilmigaaga la tusaa codkaaga la tusaa maalintan waxaan rabnaa cadowgeenu inuu arko dalkan ku nool lahayn inay arkaan adduunyada safaaradaha halkan ku nool inay arkaan marka waxaa la rabaa in maalinta gariir aan samayno inagu waxaynu haysanaa waxyaalo aan dalkeen aan ummadda kala haysan oo Soomaaliya ku nool dhaqaalaynu haysanaa baabuuraynu haysanaa waqti baynu haysanaa caafimaad baynu haysanaa wax walba wana Ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa haddaan maanta dalkeenu hiili weyno ubadkeenu dhaxalmale Soomaaliya ogaada dhaxalaawayaal baatiin tixyar baan oo hada murtiyeedaan halka ayaa ka dhiibanaya Soomaaliya gobonnimadii iyo guushii SWL idin dhaliyeen waad gablamaysaan oo gowracdeen oo god ku tuurteen ee gun yahay guntu dhashay garaadka xun geeyigiyo calankii ciidiina ilaashada guulidiisii walaalayaal culimadu ha kacdo abwaanadu ha kaceen fanaaniintu ha kaceen dhalinyaradu ha kacdo hooyooyinku ha kaceen ganacsatadu ha kacdo war cududeenna aan muujino kuwa UK joogowna bil walba waa inoo mudahara إن شاء الله يا أبي يا أقرب أبي أتحكي كقدرني تغير ويني أمالي توصى اسكتي صغير أتحكي كقدرني تغير ويني بشير سلام waxaan rabaa inaan u sheego ummadda Soomaaliyeed kala qaybsankii Soomaaliyeed waxa loo qaybshay waxay ahayd istiraatiijiyada baddaas ay Soomaali ku fadhiso waxa Jabuuti loogu diiday in ay xorowday oo ay ku noqoto maxaan ku raahdaa walaalahood Soomaaliyeed ay dib ula midowdo waxa loogu diiday waa arrinta Baabu Mandab sagaalka mayl oo hantida adduunku ay marto inay Soomaali ay xukunto oo Soomaali awoodeeda halkaas u yaala umana baahnayn lahayn khayraadka ummadda Soomaaliyeed in la soo saaro waxaan isugu nimid waa bogaadin iyo isxasuusin iyo isdhiirigelin maanta waxay Itoobiya u socotay cid moog ma jirto arrintan waa arrin wax badan soo socotay waxa ay rabaan hadaa fiirisaan waa sida exactly Mareykanka markuu qaadanay Guantanamo Bay konton sano hadii muxuu ahay kiro ku qaato dhulkaas waa iskiilo ma soo noqonayso waxaan xasuusanaa Kenya markii loo soo muxuu ahay memorandum of understanding la saxiixay maxkamadda markaa tagnay 10% ay qaadatay sheekadu waxa moodaa in la gaarsiiyo warka Soomaalida ku qabsan qadilay sidoo kale waa kugu qabsanayaan wuxuu bay la harayaan marka muhiimadu waxay tahay maanta muxuu ahaa Itoobiya iyada naga daran Itoobiya maanta iyada naga daciifsan oo muxuu ahaa fragile ah dagaalo badan dhexdeeda ka socota marka inaan anaga baqna ma aha inaan xuquuqdeena u istaagno difaaca Soomaali muxuu ahaa qarankana waa mid muqadas ah loo wada sameeyahay cidna muxuu ahaa inay meel ka fariistaan loo baahneen marka waa mahadsantiin dadaalka wadaan diyaaraan العقل هذا حيسووني سي لوقا مقابل لها مظاهرات شارية الصومالية اليو كي جوجتا كان واجبة ومدى الصوماليين لما أنت المستقبل كينا آيانا يضمننا كحلا إلى نبدأ يتبدأ بإسكتها كنو وابدأ كينا سيرودها في الهين ومن ما سبين الهين والتفارر أو وكل شيء الهين ما أنت ما يلا رير هبل وحيا ما أنت إن وابدأ كي لقاك حيو مركب علينا هاي ومبدأ إلى بدون لما أنت الأردن والمعودين مضح سياسات ما أنت وقت على ما بالقولية ما يلا ما بالقولية
waxaa looga baahan yahay madaxweynayaasha maamul goboleedyada sabcooda madaxweynaha waxaa looga baahan yahay inuu horumadu u noqdo ummadda uu ka saaro maamul goboleedyaduna ay dabagalaan iyaguna dhammaantood oo dhan dowladda soomaaliyeed sidii loosu qabsan lahaa gacan loo wada siin lahaa waxaan salaamayaa guddigii soo qabanqaabiyey munaasabadan waxaan ku idhahdaaye loogu diyaargaroobaya banaanbaxa labada bisha maxaan ku idhahdaa February dhici doonta qabanqaabadeeda maxaan ku idhahdaa ardhaxeeda si ay dadku uga arkaan shaashadaha la iska arko si ay uga arkaan in ay usoo diyaargaroobaan maalinkaas banaanbaxa weyn ee lagu banaanbaxayo nimankan maxaan ku idhahdaa Abiy Ahmed iyo inta la halmaashay Itoobiya iyo Xabashi ma garanaysaa inaan dhulkeena aanay soo hawaysanin oo aan maxaan ku idhahdaa dhulkayga aan ka difaacano oo aan u sheegno inaan nahay aar qoyey aqoon gaabku dawac uleeka dawac buu noo malaynayaa laakiin aar qoyey Soomaaliya waa libaaxa geeska Afrika hadduusan garanaynin waa garansiinaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت عاوة هذا ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo munaasabadan quruxda badan ee walaalaha Soomaaliyeed halka isugu yimid oo ujeedaduna ay tahay in aan ka soo horjeesano dulmiga dalkeena lagu hayo dowladda Ethiopiana ay faragelin ku nagu hayso taasoo ay sabab u noqotayna Soomaaliya aanan mid ahayn annagoo kala quuqoon kala daafsan ayay Ethiopia naga faa'iideysanaysaa runtii waa gudoomiye Xasan Muriidi waa gudoomiyihii baraarujinta bahweynta banaadir UK waxaan leeyahay Soomaali maxameday midooba dalkani wuxuu ku dhisnaa midnimo qabyaaladna ma jirin dalkani cid wax naga soo gasho ama meel dulgaleel ma jirin maxaa yeelay midnimada ayaa ka weyn wax kasta عثمان محمود علي لها مدحونها مستقبل ان شاء الله تعالى marka caaw barnaamijkeena hadaan ugu galo sida gudoomiyaha noo sheegay waxaan jecelnahay insha Allah ta'ala nabi alayhi salatu wasalam wuxuu leeyahay alaykum bil jamaa fa inna adh-dhiba ya'kulu al-ghanam al-khas markasta ummadda inay midoodo jamaa naqdaan hal wahda naqdaan ilaan waraabaha wuxuu cunaa ariga gaarka u bax marka Soomaaliya waxaan jecelnahay inaan midoodo qabyaalada dhaafto hadii ay ayaga heshiin waayaan bal xukunka anaga loo dhidib halka mar insha Allah qabyaalada loogu baxo waxa loo baahan yahay wax dhexdhexaad qof in la helo hadda wadankan waa ujeedaan ninka hogaaminayo waa nin hindi ah taariikhda kama dhicin wadanka Ingiriiska nin hindi uu hogaamin laakiin maslaxadooda markay arkeen inay ku jirto markaasay doorteen marka Soomaaliya waxa dareemi kartaa hadduu maanta qof reer xamar u soo istaagay inaan nabad soo socdo insha Allah إن شاء الله تعالى سوى عليه الشيء برنامج كيسير ما شيكتين وإن شاء الله وحن ديارنا برنامج حسون صعد دونا إله كلام نقطه قف كستوى حن حسننا إنه قيم قاتو إن شاء الله ودك وين البرايا السلام عليكم وجديدنا ومد مرة بنو متقنا ببليسيتي وركلي ماشى أنا هذا مركب برميشن كقاضي بوليس كله هذلي ودابعي كره ورقة وحن كويري every single entity أو دونيسا إنه كسب بحضر حصادر تدوريه مقعد سيعملنا organizers كوكوان مركب بتيجي كله قد بناء برايم مينستر كorganizers كوكوان سوي حين نقدر جماعي قروح هذا ما بهم مركا إن وحن دي شيء يا من بان هذا كور هالكم حد كان 20 years وحن كهاي parent school governor 8 years أو كلاوريجي دكتور ووري دولة كحوجي local مركب كوفيل جرودة وحن كلا قبتها ودياشة مركب هذا مساعد دار السلام جيرنا كيسا 3 years وحن دينجن أنت نبأ وحويري لبعضنا كفايدي ما نبأ وحنشتيمد مسلمين تقلبات كمركب حليري قلبتي شنتي أو حيصير على التلفون أي بحواي بالريتو وحايمانا guest of honor من الشيء نقفكوا يا هاي هالكام مريسا هذا إيلين برودوي إلهي بقى يقصر
إلين برودوي كجد ترين كبناك وصاب حلي وده كان خطر يا كل شيء بناك مركا وصاب حي جرر جنير يونين كسعودة أيا أيري invitation كان هالكاس إماو tomorrow 10 o'clock whatever you doing please وهاكو جتا list or high profile ماشي guest of honor كيو يا I can't tell you صباح دي ماشي عن تقني برنس جارلس أنو يما مسلمين توحد هان وحنوه هاد لي سهل ودوا ومعناها لبا كلمة مركو حليري هكود دانيسان هذا الكا مساجد كدار السلام ومدنين كرتي وحكاها ليس 5 minutes وحلود كؤه مسلمين تهور مركود هرتاجن بس مركو وحي وحنلاش مساجد أبو بكر الصديق مساجد دي كلام الله هدل محاج عشي مركو حنكاغو ولا وحن كفائدة لبا أرن وحن نوي من هذا نقول كلا جاستن ويلبي أركبيشن في كنتربري أيدين بحر ما هي كتمت مساجد كينيا مديني ثلاث كسارني كر وقارني باور بيسونو سده إنبياء سده أردي سوكل أرداي I'm sorry I'm late وحن إمت سيرجري وحاد عذي نين سوماليين أو لقى قادة باسبور كينيا ديارك صوتورتو ليجري وبترر سسبت أنا ميس كتجنوشر هم أفس كنويني أنا رنيك هذا التربية كل جنا مركز اللي إمام الدين يعني كان ها ورك على قاتي 6 days كده بابورا يمد بحالير باسبور كيسواكنا he is free to travel إمام عبد الغني اللي هذا هو سجوا ولا له هنا سجوا نمام بابين كشيء سوماليات أو سفارة إنجليز كده دعي إنه لينك ليه ما نلاقين واحد جاري قبر سوماليات بويل كده فن ريسين وحقق قال دبي فن ريسين مونيتورين على الجسمين هاي دقيسو والله صول دبا قال عاربور كوال داي قولي قمر قال كوكرو لسعون دين ماركت داون ريد على الجسمين قولي قمر قال هاي المسكين تاعد صدّن كن بان وقولي تعالى سرير تأكتها أيا إيه وحيد روح نكوك عيدو للير فيس داون دون موف أي وين بقى أكتاين توشكوك هذه تجي وحصول جيتي ترى بعد صدّن كوكم كجرتي هذا أنا أرماجد يلاقي في الجوال الذهب أو دقيقة يقدر بنتي ما شاء الله وحي الله قات شركة كقيم كانوا حكون الذهب كان وحولية sentimental value وريمايندر أوف ليت هاسبن غيرنا كم قبل سنة ذهب كي يصدق يكون ولا ولا لوكين ما فهمت ما حيكون كمل هذه قبيل كلا أهان لهن عندنا لما هذا الشيء مساجد مدايسن كلية أو قبنا يا وحوين مركا أنا وحرم ماشان ولا ليالو مقع دون ملي جعان أنت كمربنا سومالينا كمربنا أختي وسيع تمايا وحان ربنا كلية ولكن أن عبد علينا وكذا واجي ما أنت وحي لسجين ده حواي إن بنا بحنا على بضع فبراير طبعا كسر إحنا ما إلا كودي بركة سفارة إثيوبيا واستاتيك وحن قد بنينا بتيشن أمباسدور كأو دقيقة أو لغات وناكسن كوكورا كدبنا وحن تجينا ترافلجر سكوير لبدي بركة إلى اللحدة وعمود وحن تاجنا برايم مينسترز أوفيس السجن وحن سينا بتيشن أو عن ولبا أيامها وحسوس زعيدي من برلمان كدحدي سلوبي أو سومالي إلا كالجوي أو عدد كهلاية ضد ولا عليهن عفر توقف أو ماشى لتاجن هلا كالجو ما فهمت مركا أنا وحربنا إن نرى نكان he is there for himself he is there for the money كفى إنه قطع مجتمع الصومالي ده نوع كحنين in prime minister's question time دور جرلس كده إن الصومالي اللي قدوا عارين كان وحود داوع ومدي ودن وأنا كحنا نكا كوب مدلبات عارين كان هدي أن لجهرتين regional peace كلامي وحسمي اسمه الصومالي فيجيلاتي جروب أنا هدي إن الصوماليين انتبهوا لسه هي نورد كوريا إيران والصواريخ ماشان كل كتو جد كان لما مرا يرسل حوتي يدين كأبوراي إثيوبيا هم كبتو نيفل بيس معها إيكونومي ما كان نيفل بيس وهو أكوبيشن وعارملا مرك ولا لها وعدود واهي كدبنا وحاول بيننا السلام الله ما شاسنا وحرجينا إن مكان وحان كعدو دارنا لبد برنامج كان عاوة جدو كله وحي فرينتا اللوك فيه dadka yuukan jooga inay ka soo qayb galaan xafladda ibaad inshallah wala waxa sidnuu yimsan markaan u soo laabto ajdaa meesha isku qabaqaabada shirka maarta muxuu ahaa bannaanbaxa bishalada doona waxaan ka codsanaynaa jaaliyadda Soomaaliyeed sida guddiga cusubeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK si mid miisaan leh
oo macnaha qaymo ku dhisan oo yacni maaragtay inay uga soo qayb galaan banaanbaxaas intaas way message ku kaleena codsigan waa kaas codsigan waa kaas message aan ku kaleeno lama kala xigo Soomaaliya lama kala xigo dalka lama kala xigo luqadda lama kala yaqaan وأنا لا تسوق أي بلد سلم إذا واحد قلنا ولد ما ولد شقة أنا واحد مقعد مش يجيو لكن لما هي ما قبلات أبا بلي أو مدحونا أبا بلي ما مقعد ربها بجوا بننبح أبا بلي مجرى حدي مركا يوم ما أي كجابيها أو الشعب كمان قبلينا أو كي كلمة أو بدلان أو ما تبقى شبلان أو كفر قلبات أو مش هذه الشباب حقيقة في الشعب كله يمدحون معناه واحد لمديه لكن هذا ما أرتاح يا أحمد أنا متصل له أنت مركب واحد وهذا اللي هنا هو حب سالي بعض الشباب بتشوف بالجوية مظاهرات فاتوا لو كان عارف Soomaaliya lama kala xigo lama kala yaqaan magacyo kasta aan kala sheegano laakiin maalintaas bisha labadeeda please sida guddiga codsadeen in mudaharaadkaas si xoog looga soo qayb galo labadaas position oo ay sheegeen maarta guddiga ay sheegeen waan mahadsantahay salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان golahan qabanqaabada loogu diyaar garoobayo labada bisha February ku aadan oo maalin Jimcaha ku aadan loogu diyaar garoobayo wasalaam ya dhamaantiin warbixintii walaalkeen sahal iyo ustaad ninkii la yiraahdo boqorre ay hoggaanka ka yihiin guddiga qabanqaabada ay ka yihiin runtii qabanqaabada ka yihiin xigmadda meeshan taale iyo sida farsamada walaalkeen sahal u warbixiyay oo warbixinta lagu siiyay siday u diyaar garoobeen runtii waxaan rabaa inaan aad ugu mahadiyo runtii waxaan leeyahay waldan waxaad qabateen shaqo culus oo loo baahnaa ood noo wada qabateen ilaahay ustaad xasan aweys in loobin anigu waxaan baan isla joognayo xaflad baarle aweys uu ka mid yahay runtii rag culus baa meesha isku helay beerluna waa gudoomiyey jaaliyadda runtii ayada warkeedu waa cad yahay waaba hadashayba horay waa hadashay حسن مريدي يبرلوا عني وإلى صور شقيان لما ضد إلى صور شقيان قال كاسة هل نفتي سكنتيو أستاذ كان متقارنا نكلي بقرة بارجع جاري ده أساس شو كم دي بقرة مركب رنتي ماشى لو ما كلام مقرنا وحفظية واحد جوت رنتي رفت لي هواي ومرنا دمشق لي ومر ولا شيء ها وريدي يو اسكدع التيم كانوا بيبي بنادي والي قانا وركودوا وعدي ضد مقدو كجرا معها marka waxa weeye runtii waxaan isleeyahay barnaamijkan aad diyaariseen wallahi alcadiim hor uma dhicin ma sha Allah wax hor u dhacay wax hor u dhacay maaha oo qabanqaabada iyo gudoomiyaha jaaliyadda oo wada jira waxaan ka codsanayaa inaan maalinkaasi aan laga kala maqnaanin oo lagu kala maqnaanin wallahi maalinkaa qofkii ka maqnaada fagaarahaas ka maqnaada la tilmaamay oo labada 1 iyo 2 isugu xiga qofkii ka maqnaado Soomaalimada wax kuma sheegan karo wax kuma Soomaaliland kuma abtirsan karo maalinka ayada maalinka Soomaalimada waxay ku xiran tahay fagaarahaas inaad timaado waa koow labo annagu ma joogno jaaliyadda Soomaaliyeed ee Ingiriiska ku nool ma joogto Muqdisho ma joogto Soomaaliyana ma joogto halkay joogtaa sidee marka dagaalka ay ugu qayb qaadanaysaa su'aashaasi jawaabteeda marka waxa waaye mar haddaynan ka qayb geli karin frontiga oon dagaalka gelaynin laba arrimood baa nagala rabaa koow waa inaan shilinkeena ku bixinno shilinkeena inaan ku tabarucno oon tabarucaad dhaqaale ah oo ururin ah aan bilowno sanduuq samafal ah oon ugu diyaar garoobno difaaca dalka aan bilowno waa koow labo sida horey loo sheegay dad baa qof baa ka hadlay hortay sidaan filayo banaanbax wiig la haduusan dhici karin bilaa ah manfal inuu dhaco